الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ugu horeysa waxaan jecelahay dalkan inaan ka salaamo bulshada Soomaaliland hogaanka xisbiga kulmiye madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dadka qaran iyo shacbiga iyo bahda meediyaha kulli ma jecelayn inaan shir jaraa'id qabto haddana waxa ugu khasabtay qofku markuu ogaal yahay wax badanna aad xog u hayso markaad aragto rayacaamkii guud ee Soomaaliland oo ugu sameeyay farshaxan bal bedelayo waxa ku khasbanaaday inaan xogaa yar oo binixiyo waxaan rajeynayaa shirkan inaan noqon doonin shirkii ugu horeeyay ka hadlo waxa jira daraasado la sameeyay iyo xogo badan oo aan hayno haddana ahaan jiray dibashooyinka amniga sababta xafiiskaygu wuxuu ahaa xafiiska ugu xogta badan leh ee Soomaaliland waxaan jeclahay inaan halkan aan kaga hadlo dhowr qodob waxa weeyaan wuxuu noqon doonaa inaan iftiimiyo Soomaaliland political crisis kan ay gashay waxyaabo sababa qodobna waxaan jeclahay inaan kaga hadlo xeerka xisbiga iyo xeer number 14 iyo waxyaabo ka qabo oo shalay aad moodo niman xumo golaha wasiirada ka tirsan inay ka hadleen qodobka ugu dambeeyay waxaan jeclahay inaan tiro soo jeediyo shacbiga Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hogaanka xisbiga kulmiye haddaan ku horeeyo Soomaaliland sida ogtiina waxay gashay xaalad loola karo waa political crisis bay gashay sababna waxa uu ah sidaan rajeynayo sawir aan idin muuqanin bulshada Soomaaliland waxa sabab u ah group ka tirsan xukuumadda madaxweynuhu hogaamiyo groupkaasi waa group caana waxdeeda amnigu ama qolada amnigu waxaan u naqaanay guntigaaban u dhan jirnay markaan ku jirnay siyaasadda waxaasi magacyo badan bay isticmaashaa north root-kooda koobaad waa ikhwaan muslimiin magacyadu way bedbedelaan mar waxay u bedelaan waxay yiraahdaan waxay la baxaan nahda mar waxay la baxaan ittihaad mar waxay la baxaan islaax mar waxay la baxaan ihtisaam mar waxay la baxaan dam jadiid marna waxay la baxaan al-shabaab magacyadaas waa magacyo dhammaan dadku ururayo waa ikhwaan muslimiin siyaabaha ay doonaan inay markay doonayaan dal inay qabsadaanna waxay dalka ka abuuraan waxa loo yaqaan political crisis sida dhacday wadamo badan ay kamid tahay Djibouti waxay ka tihiin doorashadii ugu dambeysay iyo ragga u xiran waxay ogaal ka tihiin Tunis wixii ka dhacay waxay ogaal u tihiin Algeria ka dhacay sagaashanaadkii iyadoo ugu dambeeyay waxay ogaal u tihiin wixii ka dhacay Masar waxay ogaal u tihiin wixii ka dhacay Syria waxay ogaal u tihiin maanta wax Soomaaliya ay la digi leedahay waxa weeyaan waa asbaab noocaas magaasi diinta isku qurxiyaan oo sawir diineed bay sidaan laakiin afkaartoodu waa afkaar siyaasi ah laba sababoodna way weeraraynta badan waxay dadaalaan inay hantida dalka gacanta ku dhigaan waxa kale awood saaraan powerka inay gacanta ku dhigaan maanta waxay moodaa Soomaaliland xaalad ay doonayaan inay gacanta ugu dhigaan inay marayaan waxaan jecelahay inaanay jirin aanu cadeeyo Soomaaliland inaanay jirin gudoomiye iyo madaxweyne saaya iyo xisbi saaya laakiin waxa sabab u ah inuu khilaafku inta halka gaaro waxa weeye groupkaas waxaan jecelahay waxa kale oo imka ay aad uga howlan yihiin inay abuuraan wax loo yaqaano gudida culimada Soomaaliland siyaasadda ka dambeysana waxa weeye in qofka soo siyaasiya oo muslina oo muslim qoyr socda sida hadhow toole dadka loogu kicin lahaa oo gudidaas ay noqon lahayd gudi awood badan oo qof kasta iyagu ay sameeyaan fiidiyooyin ay qofna kaga saaraan systemka qofna ku soo geliyaan waxaad maanta xogaal ka tihiin inay aad ay uga qeyliyeen ururada waxaan oo kala diimeedkeena hore sida ahlu sunna wal jamaa waxa kale oo xogaal u tihiin inay maanta Hargeysa ay jiraan masaajido la isku haysto oo maxkamadaha ku jira sababna waxa uu ah nimankan idin sheegayo waxay doonayaan inay dominate gareeyaan dhammaan masaajidada oo isticmaalaan media marka waxaan jecelahay shacbiga iyo inta af Soomaaliya ku hadashaba inaad u fahantaan inaanay maanta jirin khilaaf siyaasi ah oo ka dhex jira dawladda Soomaaliya dadka Soomaaliland laakiin jamciyadaha noocaas inay siyaasadda Soomaaliland aad ugu jiraan imka aad waxa u taageer gareeyaan si loo tirtiri lahaa ahlu sunna wal jamaa iyo urka la yiraahdo salafus salih taas waa qodobka koowaad aan jecelahay inaan idin iftiimiyo
waxaan jecelahay oo kale inaan idin iftiimiyo qodobka labaad waxa weeyaan waxa weeyaan shalay waxaan maqlaynay ma oran karaan waa gobol dhexe guddi fulineed fulintii dawladda 19 xubnood iyo 4 xubnood oo suuqa laga soo daray waxaan jecelahay inaan idin yar iftiimiyo xeerka xisbiga qodobkiisa 15aad wuxuu ka hadlayaa qaab dhismeedka xisbiga uu ka kooban yahay xisbigu ka kooban yahay shir guddoonka iyo 4 gudoomiye ku-xigeen xogeyaha guud iyo xubnaha golaha dhexe wuxuu sheegayaa isla qodobkaasi farqadiisa labaad in golaha dhexe ay ansixin doonaan guddiga fulinta taa macnaheedu waxa weeye markuu gudoomiyuhu soo magacaabo ay guddidii dhexe ay ansixin doontaa guddiga fulinta laakiin qaab dhismeedka xisbiga saad ku arki doontaan farqadiisa ba qodobka 15aad intaas uga kooban yahay waxaan jecelahay taas waa qodobka labaad aan jecelahay waxaa jiray awoodo u sheegteen guddidii shirweynaha awoodahooga waxaa sheegaya qodobka 19aad isla xeerka wuxuu sheegayaa shirweynuhu wuxuu leeyahay awoodahan soo socda wax ka bedelka iyo ansixinta dastuurka xisbiga wax ka bedelka iyo ansixinta barnaamijka xisbiga doorashada xubnahan kooban oo gudoomiyaha 4 gudoomiye ku-xigeen iyo xogeyaha guud meel allaala meel ka sheegay in guddi fulineed uu magacaabaya ma jirto qodobkaas xarafka xa wuxuu sheegay doorashada xubnaha golaha dhexe xisbiga marka ma muuqato meel allaala meel ay awood ugu leeyihiin shirweynaha xisbigu inuu magacaabo guddi fulineed waana rayacaam khaldan oo dadka la doonaya in lagu jahwareeriyo isla qodobka 20aad wuxuu sheegayaa shir guddoonka iyo xilka iyo waajibaadku leeyahay waxaan jecelahay waad akhriyi kartaan meel allaala meel ku sheegaya ma jirto qodobka 21aad wuxuu sheegaya xilka iyo waajibaadka gudoomiyaha isna kuma cadda meel allaala meel ku sheegaya waxaan jecelahay qodobka 24aad xarafkiisa da ayaa wuxuu sheegayaa awoodda gudoomiyaha xisbiga kulmiye inuu awood u leeyahay inuu magacaabo guddiga fulinta sidoo kale xeer number 14 qodobkiisa 13aad ayaa isna wuxuu awood u siinayaa inuu gudoomiyaha xisbiga uu awood u leeyahay inuu magacaabo guddiga fulinta taas waxa weeyaan waa intii xeerka sababtoo ah waxaad moodaa hadday beentu fara badato reecaamku way lumisaa waxaan jecelahay shalay qoladii hadlaysay anuma odhan karo de waa guddi fulineed waa xubno la soo diray golaha wasiirada ka tirsanay iyagu oo welibana waa inta aan isleeyahay waa namnu dadku ay noo kala suntanay marka shirka golaha ku jirnay ragna waxa ay rag la diro ragna waxa ay raggan idin sheegayay awoodda meesha ku leh marka ragga la soo diray ma jeceli inay wax yiraahdaan meel allaale maan ku aragno ma hayne waxaan doonayaa anaga idin faahfaahinaya waad ka eegi doontaan insha Allah halkan taas waa qodob labaad waxaan jecelahay xubno ka tirsan guddidaas waxay yiraahdeen salka iyo khilaafka xisbiga wuxuu ku ururaa musharaxnimada xisbiga gudoomiyaha xisbiga waxaan jecelahay qodobkan inaan laba qodob ka yiraahdo horta waxa ugu dastuuriya qofku inuu sharaxo iyo in la doortaa waxa ugu dastuuriya dastuurkeena qaranka qodobka 22aad farqadiisa koobaad ay qofka muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu galo hawlaha siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo hidde si waafaqsan xeerka iyo dastuurka qaranka sidoo kale farqadiisa labaad waxay leedahay muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerka tilmaamay wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxana doorto saawadeed ima muuqato hadduu qof yiraahdo waxa ku muuqata inaanu jirin aqaliyad saliima laakiin qofka marka la yiraahdo waxa dheh inuu oranayo ninkaas wuxuu ku horyimid xaqi dastuuriga hay'ad qof inuu xaq u leeyahay inuu xana doorto lana doorto sidoo kale xeer 14 oo inta badan ay siteen ilaa xalan ku arkaynay qodobkiisa 11aad wuxuu leeyahay musharaxiinta markuu ka hadlay musharaxiinta qof kasta muwaadina wuxuu xaq u leeyahay waa isla xeer 14 wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxana doorto saawadeed anigu ma arko sabab ama madaxweynaha noqdo ama gudoomiyaha xisbiga ha noqdee sabab qof loogu diidi karo inuu wax doorto lana doorto taas waxay noo cadeynaysaa inay nimankani doonayaan inay dalkan geliyaan political crisis sidii masalo kale in la isku dilo dadku isku hor yimaadaan ka bacdina siyaasadooda halka ugu fusho laakiin waxaan leeyahay waxaa jirta daraasado ay ka sameeyeen hay'adaha caalamiga bisho mar baan jeclahay inaan siiyo
qaabismoodkooga dhaqaalahooga taladooda iyo guddoonkooda maanta Hargeysa waxa jooga ragis ka sharaxay xamar ee guddoomiyaha soo sharaxay ee ku guul daraystay maanta Hargeysa la jooga waana nasiib darro maanta inay yiraahdaan waa muuqataan Soomaalida waxay tiraahdaa ninka dhuumada dhabarku muuqdo waxa kaloon leeyahay taasi waa qodobada aan jecelahay inaan iftiimiyo marka la leeyahay guddoomiyaha iyo madaxweynaha ayaa khilaaf ka jira shalay waa labadii nin la wada dooranay aqaliyada maanta oranaysa labadii nin shalay la wada dooranay ayaan maanta haddana khilaaf ka dhex abuurayna waxaan garanayaa qof kasto aqli saliim leh waa garan karaa waxa looga damacsan yahay dalkana waxaan jecelahay inaan tala soo jeedinteedana aan jecelahay inaan u soo jeediyo imaga waxaan u gudbayaa tala soo jeedinteedii mid waxa weeyaan waxaan doonayaa inaan soo jeediyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland tiiban ku horeeyay madaxweynaha waxaan jecelahay madaxweynuhu waa nin xurmo inaga mudan runtii inta uu shaqeynayna waa nin akhlaaq badan nin dib badan maaha waa nin dibta nacab waxaan aaminsanahay 2 sanadood dalkan soo halgamay maanta uu shaqeynaya 2009 maraan kaliis ku ahayn maalin aan ku yiri waxaan u taaganahay inaan 5 sanadood hadduu Allah igu simo inaan magac kaga tago magacayna kaga tago 5 sanadood Allah igu simo maanta aan u taaganahay madaxweynaha waxaan leeyahay Soomaalida waxay tiraahdaa cimrigaaga ceeb laguma sugotiyo walaadankuna wuxuu manaafacsado waxa uu weyn taariikh taariikhda waxa laga yaabaa inuu ilmaha u dhaxlo inuu kaad awoodo dhaxlo inaad adigu dhaxasho haddii alla kugu simo waxaan jecelahay sidii ninkii Aadan Cabdullaahi Cusmaan inaan taariikhda iska xumaynin maanta sharaf iyo qiimo ku leedahay Soomaaliland haddii aad doonayso inaad isleedahay awood baad u leedahay inaad tartanto waxaan jecelahay horta groupka aan jecelahay iyagu mas'aladda Soomaaliland لما كوردو يلاطو ساعة عدل فرنا هنا ثلاثة مقاضته لكن ما كلها تاريخ هذا إن هكو مسيحين سياسة كفلعان وجروب وهو صار من الوطن من نوع الله هاي إن شعبوينها سومالان أنا كان دوني أنا كعبيو سيما دسكور كان دو كلار بيشان خيراش كور كان إبراهيم مدين خيرا أنا وحبا سوا هاي ولا لا dal iyo dhasheeda oo dhiig iyo dhaqan ka dhaxeeyo oo xidhiidhnimo ka dhaxaysan maanta doonayna inay khilaaf ka dhaxawuraan waxa shacabweynaha u soo jeedinaya inaan jirin reer ku duulaan ku ah iyo reer wax u diidan laakiin wax bayn wada leenahay waxaan wada leenahay inaan yeelashano waxaan idinka digayaa siyaasaddaasi waxa ay geysin kartaa Soomaaliland inay Hargeysa noqoto Muqdisho kale balbara noqoto marka oo kale burca noqoto baydhabo oo kale ergaabana noqoto kismaayo kale ilaah baynu leenahay rajayna maayo gurkaas inay ku guuleysan doonaan afkaartooda ku raacan waxaan jecelahay inaad qalbi furan yeelataan ubadkiina iyo ayihiina aad ka tashataan midna waxaan leeyahay qolada aan u sheegayo qoladayda amnigu naqaan gunti gaabta Soomaalidu waxay tiraahdaa la aragtay leega ma ogtahay maanta beesha caalamka iyo dawladda ayna la jaarkayba si fiican bay uga warhayeen siyaasadda Soomaaliland siyaasadda xumadiinaas waxay geysisay dawladda kaliya ayna la jaarka ahayd ee fiisayna aqbali jirtay ee dalkeenu ku gali jiray fiisada baasaboorka Soomaaliland in loo diiday 18 May inaan laga xusin umalayn maayo wadada ka furan damciina halagada waxaan jecelahay inay qacad bilaadan bishin bidmilaahi kariim bulshadana maalin iska ka qaban doonto midna waxaan leeyahay hoggaanka xisbiga kulmiye waxaan jecelahay inay ku dhiiradaan ee dastuurka iyo xeerarka dalka ay u ogol yihiin kana fogaadaan wixii ummadda fowdo iyo sookin ka horkeenaya وأنا مع سنتين بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عيب عبد القادر حسين استرتي في بنك السعودية. واحد شيء مركي بنك إنه يشوفان بمن مسؤولين ولا دوا حمل قدومي وقتها. بيكون وزير كريم كأمن قاعد. ما أنت الآن كنوع عاصفتي من الشرعي بحال يقولون هذا وزير كأمن قاعد. هذا الله بعض. واحد يدين لا يقرأ واحد شيء. لماذا بدو يفهم الشرعي تمشي في الشرعي بقتها. إني بشيران
qolo la diro iyo qolo awoodda kula meesha weli markaa wasiirka kuwa la diraad ahayd mise kuwa awoodda kula meesha waayo waad mahadsan tahay inaad waxaa jecla marka hore inaan su-aasha ka jawaabo horta waxaan doonaya idiin sheego waxaan ahaa anugu habeen ka tirsan golaha la yidhaahdo golaha la dagaalanka argagixisada iyo muraadadeeda ee gacanka carmeed waxaan ka qayb galay shirkii lagu qabtay Sanca iyo shirkii lagu qabtay Djibouti waxaan isku daynay inaanu la wadaagno wadamada Soomaaliya la jaarka sidii loola dagaalami lahaa waxay xogagaal ka tahay anigoo qura maahe 5 jeer amba 6 jeer hore in madaxweynaha laga hadlay sidii nimanka wax looga qaban lahaa annagu haddaan nahay albaan ku ahayn aragtidan iyada ah waxay gaadhay shirka golaha wasiirada inaan laba soo hadal qaadi karin al-shabaab oo la soo qabsado laakiin marnaba nagama joojin jirin inaan ka hadalno kana doonno arrinka isaga tan kale haddaan ahay qof la dirayo sababta xilka uga tegay ayaa ku sheegaysaa in la diri jiray inaan habo xor